السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دبادة سحبتي يوتيوب محمد قياد كوحر. waxaan la hadlayaa dadka oo u soo dhigay sponsorship-ka ay weydii noo soo dhigay dhahan kiiski walaal waa nii soo dhigay linkiga nii soo dhigay waxaan dalbada anigii ugu soo noqonaysiin lambar ana isu wiciisiin aniga weydinaysiin loo dalba linkiga nii soo dhigay meesha ku qorantay wixii laga rabo shaqada oo wadanka kan dadka dalbanayso meesha sagali linki marka ku dhufatid meesha kor waxa jirtaa or Canada citizen and refugee ku qoran or jobs ku qoran meesha saa ku dhufanaysid waa gelaysid wixii oo adiga aqoon wadatid ma shaqada waxa qaban kartid oo fikrad hadda takhtar noqon kartid hadda meesha maqaayadaha ka shaqeyn kartid hadda ka shaqeyn kartid jidadka hadda meel shaqo every shaqada laga rabo meesha lagu soo qoray aad gali kartid waa dalbani marka hadda lagu saaciday shuruudihii adiga lagu soo diray ku saaciday ku soo dalbay aan ku dalbo maxaa aniga ugu soo noqonaysa ani su'aasha waa ku saaciday adana waan kula hadlay mar labaad way videoga hadda soo duubay hadda daqiiqadahan soo duubay la soco shuruudaha la iska rabo oo dawladda Canada soo dalabatay waa inta haysatid waa aqoonsigaaga shahaadadaada wixii aad soo shaqaysay waxa qaban kartid waxa aqoon leedahay waxa wadanka ku soo kordhin kartid laga rabaa ma aha waa iska socdo waa dalbana no taasina shuruud kala way ayadana shaqooyinkaas kuwaas ay rabtiin iska soo gal rabtiin shaqadaasina waxa kuwaas wata dad baa wata oo jobs oo wadamada ka soo qaada oo viisada dadka siinayo ayagu ku keenayn laba bilood ku fiirna inta shaqeyn kartid oo wadankan shaqo qaban kartid waa kuwaasna waa kuwa maqaayadaha waa sida KFC-da waa sida McDonald's waa sida oo Subway-ga waa sida oo meelaha badan yihiin ma fahamtay kuwaasa u badan oo dadka viisada siinhay laba bilood ku fiiran hadda labada bilood shaqo qaban karin waa ku tirtiraan way ku celinayaan waa kuwaasna hadda TikTok-ga soo dhigi doonaa waa shuruudaha ay waxay ka rabaan ay ka aqaanaan waa la xiriiraysiin website-kooda tagaysiin waa la xiriiraysiin kuwaasna gooni way tana waa dawladda Canada waa tan cod aan la hadla dawladda Canada way tan kalena waa sida Tim Hortons-ka McDonald's-ka iyo kuwaas lamid waa kuwa viisada dadka bixinaya awal hindiday keeni jireen iyo Philippines iyo waxaas ay keeni jireen way ka wareejiyeen wiliyaha dadka wadamada kale ka rabaan Yurubta oo meel bay joogan way dad ay rabaan inta keenan visa siinay marka kuwaasna waa gooni tanna waa gooni kuwaasna TikTok-ga soo dhigi doona waa uga hadli doona taasna ma fahamtay waa shuruudo badan waa ayuu kana marka walaalayaalow su'aalahan laga rabo dadtaas rabtiin oo Tim Hortons McDonald's inta soo qaadartiin taasna waa soo siina website-ka inta soo TikTok-ga soo dhiga ma fahamtay YouTube-ka ma TikTok-ga soo dhiga kana waa tii dawladda Canada watana ka hadlay linkiga aan soo dhigay oo leey dalbada ka faa'iideysta fursadiina ma fahamtay waa kala mid markaas fahamno marka waxa ni soo diro dadaala ininka wixii dalbada ani intaan wax ni dalbo oo wixii ni soo raadiyadana wixii la qabto qalad way waani soo waani raadi waani soo heli gala dadaala fursada ka hel kule dad badan ka faa'iideysto malaha ma fahamteen marka dadka aniga weydinayo ugu soo noqonay linkiga soo dir kan soo dir WhatsApp meelaha warin ma aha no linki waxaas wuxuu ku jira YouTube-ka dalbo meesha videoga u dambeeyay soo gelinay kaas ku jira linkiga meesha messenger-ka tagay ping aan wilata ku qabtay waa gali waa ku dhufani linki soo dir linki meesha ku jira ma garanteen aan fahamno marka direct intan Tim Hortons-ka McDonald's-kana waa visa gooni kale waa visa lagu siinayaa passport-kaaga bis caawadatid way passport ma wadataa waa Tim Hortons-ka McDonald's ayuu ku keenayeen ayuu soo wadankan ku keenay kuwaas McDonald's KFC tanna dawladda Canada ku keenay gooni way waa laba shaqsi way taas TikTok-ga kaasna gooni ahaan ugu soo hadlaa tanna waa tii dawladda Canada naga balqaaday intay dadka keenayso oo wadanka shaqo iyo wax walba shaqo abuur ay siinayso
ودن كان سي دغنانا داربان سي جوكران marka walaal as fahamno dadkii fahmo mi fahamtin la socda arintas waa saasa ugu baxay wassalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh wa kulantu wacan tiktok soo raaca soo gala meeshas